dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ee Garowe. Madaxweynaha dowladda Puntland waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay xubno ka mid ah golaha wasiirada Puntland ay ugu horeeyaan wasiirka waxbarashada, wasiirka cadaaladda dowladda Puntland iyo mas'uuliyiin kale. Ujeedka uu dib ugu soo laabtay madaxweynaha dowladda Puntland ayaa waxa ay tahay si uu uga qayb galo aas qaran oo loo sameynayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo ku geeriyooday Turkiga iyo madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi. Aaska kadib ayuu madaxweynuhu dib ugu laaban doonaa magaalada Dhuusamareeb uu ka soo baxay, isla markaana waxa uu halkaas uga qayb gali doonaa wejiga labaad ee shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa galabta waxa uu gaaray halkaasi iyo Dhuusamareeb. Sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la filayaa in uu maalmaha soo socdo gaari doono magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac Dabrani ayaa ka warbixiyay safarka madaxweynaha ee uu Garowe ugu imaaday iyo waxyaabaha sababay. waxa uu la hadlay warbaahinta waxa uuna yiri madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu maanta dib ugu soo laabtay caasimadda Garowe kadib maalmo uu safar shaqo u joogay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, halkaasi oo madaxweynuhu kaga qayb galay shirkii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo guul ku soo dhamaaday, iyadoo wajigii kale ee shirkaas oo arrimaha Soomaaliya iyo shaqooyin badan oo masiirka dalka ku saabsan la filayo halkaasi inay ka sii socdaan ayaa haddana madaxweynuhu maanta ku soo laabtay Garowe si uu uga qayb galo aaska Allahu naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax, madaxweynihii hore dowladda Puntland Allahu naxariistay Maxamed Cabdi Xaashi. waxay ahaayeen laba tiir oo muhiim ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland ba muhiim ku ah oo ka baxay. waxa ay ahaayeen laba mas'uul oo door ka qaatay dowladnimada Soomaaliya, kaalin ku lahaa mar walba ilaalinta nabadgelyada iyo hagaajinta mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya. dabcan Soomaaliya iyo Puntland bay soo shaqeeyay, Allahu naxariisto. marka madaxweynuhu waxa uu soo laabashadiisa halkan Garowe la xiriirtaa ka qaybgalka aaskaasi. aad iyo aad buu mahadsantahay.